bad iyo bariba ama dunidan baaxadda leh waxa ku qarsoon arrimo barasho inooga baahan. Haddaba barnaamijkan waxaan ku booqan doonaa dalka Belgium-ka oo aan wax badan ka ogaan doono. Belgium waa dal yar oo dhaca galbeedka Yurub ee saaran badweynta Atlantic, gaar ahaan badda waqooyi. Dalalka oo xadadka dhuleed la wadaagana waa Faransa, Germany, Luxembourg iyo Netherlands. Dalka oo xadka dhuleed ugu dheer la wadaagana waa Faransa. Waa dal dhulkiisa gaarayo 30,000 oo kiiloomitir isku wareeg ah, waxaana dalkan si guud loo qaybiyaa ilaa 3 gobol kuwaas oo kala ah Flanders, Wallonia iyo Brussels. Dhul ahaan waa mid iskugu jira dhul siman oo dhanka xeebta ah, gaar ahaan gobolka Flanders, dhul taagag leh oo bartamaha dalka ah, dhul joog sareeya leh sidoo kale kaymo loo yaqaan Antilles, waxaana laga helaa gobolka Wallonia. Buurta ugu dheer dalkan waa Buurta Range. Dhanka kalena waxaa jiraan oo dalkan laga helaa 5 haro oo gacan ku samaysa oo lagu magacaabo Odior, waana kuwa sameeya ama lagu tilmaamo badka haro ugu weyn dalka Belgium. Webiga ugu weyn dalkan waa Scheldt oo ah webi mara waqooyiga Faransiiska, galbeedka Belgium iyo qaybta koonfur galbeed ee dalka Netherlands ama Holland.